bismillaahi raxmaani raxiim halkan waa xanta wararka qodobada aan idiin soo gudbin doonno waxaa ka mid a Mareykanka oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ka taageeraya dagaalka maamul goboleedyada. waxaad kaloo daawan doontaan mid ka mid a beelaha Soomaalida oo dhabar jebin xoog leh ku sameynaysa qorshihii ra'iisul wasaare Khayre madaxweyne Farmaajo. xog iyo xaqiiqo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbin doonaa. qarax lagu aasay suuq ku yaala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo la fashiliyay. dowladda waddanka Kenya oo dambi ku heshay rag loo heesay weerarkii jaamacadda Gaarisa iyo shacabka iyo ganacsatada Muqdisho oo amar culus la duldhigay. intii aad daawateen saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobadii wararka aan idiin haynay kuwooda ugu waaweyn. markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo dhammaystiran. dowladda Mareykanka ayaa isniintii toddobaadkan dib u furtay xafiiska hay'adda USAID ee Soomaaliya kadib 28 sano markii ay u xirtay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka qarxay. go'aanka dib loogu furayay howlgalka USAID ee Soomaaliya ayaa sida ay sheegtay USAID waxaa horseeday dadaalada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku sameynayso isbeddello macno leh isla markaana ay dib ula macaamilayso beesha caalamka. hay'ashee go'aankan ayaa sidoo kale waxaa ku lug leh arrimo siyaasadeed sida uu sheegay Matt Bryden oo ka tirsan hay'adda cilmi baarista sahanka ee diiradda saarta Soomaaliya. Bryden ayaa tallaabadan ku qeexay mid lagu xoojinayo colaadinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku hayso maamul goboleedyada dalka. in xafiiska USAID laga soo wareejiyo magaalada Nairobi lana keeno Muqdisho waxa ay sare u qaadi kartaa xiisadda u dhaxaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee dowlad goboleedyada sida uu qabo aragti ahaan Brighton. sida uu sheegay ninkan marka la eego dalalka reer galbeedka dowladda Mareykanka ayaa waxaa loo arkayaa tan taageerada ugu xoogan u muujinaysa nidaam dowladda dhexe ay awood ku yeelanayso taasi oo dhiirigelinaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay dareento in ay iska indha tiri karto dastuurka ku meel gaarka ah iyo in ay sidii doonto ka yeelan karto maamul goboleedyada. dowladda Mareykanka ayaa ahayd dowladii kaliya ee taageerada u muujisay dowladda federaalka ee Soomaaliya markii bishii Janaayo cayrisay ergeygii qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom xilli inta badan dalalka Yurub ay arrintan tallaabada ah dowladda federaalka ee Soomaaliya qaaday ay ka caroodeen. kulamo gaar ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho bilowgii bishan isla markaana ay yeesheen odayaasha dhaqanka beelaha Habargidar ayaa lagu joojiyay dhammaan rajadii iyo qorshihii dowladda Soomaaliya ay ka damacsaneed maamulka Galmudug. odayaasha beelaha Sacad, Cayr, Duduble iyo Saruur ayaa la kulmay odayaasha beesha reer Xaaji Saleebaan waxaana ay ka wada hadleen qodobo ku saabsan mideynta Habargidar iyo ka hortagga damaca dowladda federaalka ee Soomaaliya ee qabashada doorashada maamulka Galmudug sanadkan 2019. beesha reer Xaaji Saleebaan ayaa laga dalbaday in magaalada Cadaado aysan ka dhicin doorasho ay soo abaabushay dowladda Soomaaliya oo ku saabsan deegaanada maamulka Galmudug. dowladda Soomaaliya ayaa waday qorshe doorashada maamulka Galmudug waxaana ay rabtaa in ay ku qabato magaalada Cadaado maadaama aysan tagi karin Dhuusamareeb. hay'ashee odayaasha Habargidar oo dhan ayaa ku heshiiyay magaalo ka tirsan Galmudug in aysan ka qabsoomin doorasho dowladda federaalka ee Soomaaliya ay garwadeen ka tahay taa oo ku sheegeen in lagu burburinayo maamulka Galmudug. Cadaado oo ay degto beesha Saleebaan waxa ay ahayd meesha kaliya ee looga cabsi qabay in doorasho ay ka dhici karto. hay'ashee Habargidar ayaa is-hortaag ku sameysay qorshihii dowladda Soomaaliya. beeshan ayaa ku heshiisay in shir ay ku yeeshaan magaalada Hobyo bisha dhalan doonta ee July ama Luulyo waxaana halkaasi lagu dhammayn doonaa dhammaan tabashooyinka ay iska qabaan beelahan Habargidar. sidoo kale waxaa looga hadli doonaa ayaha maamulka Galmudug iyo sidii dadkeeda loo midayn lahaa waana sababta keentay in beesha reer Xaaji ay ogolaadaan in ay Cadaado lagu soo dhaweynin qorshe kasta oo ay beeshan ku mideysnayn. dhinaca kale saraakiisha ciidamada ammaanka maamulka Puntland ayaa sheegay inay fashiliyeen qarax miino oo lagu aasay suuq ku yaala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. ciidamada ammaanka Puntland waxa ay sheegeen in qaraxaasi uu ahaa miinada dhulka lagu aaso waxaana la geliyay meel ku dhow isgoyska Gaaca ee suuqa magaalada Boosaaso waana bartamaha suuqa. arrintan ayaa timid kadib markii ciidamada ammaanka Puntland mid ka mid ah uu arkay qaraxa la geliyay suuqa waxaana kadib la xiray wadooyinka suuqa gala iyadoo kadibna goobta laga saaray oo ay ciidamada miina saarista u tababaran ee maamulka Puntland ay arrintan ka shaqeeyeen. saraakiil u hadashay ciidamada Puntland ayaa sheegay kaliya in ay miinada soo saareen mana jirin faahfaahin dheeraad ah oo ay ka bixiyeen miinadan
iyo haddii ay jiraan dad lala xiriirinayo inay ku aaseen miinada suuqa bartamihiisa oo ay ciidamada gacanta ku soo dhigeen. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa kordhay amni darada ka taagan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, waxaana ciidamadu ay sameynayaan dadaallo aad u xooggan oo ay kaga hortagayaan fal kasta oo amniga ladigo ku ah oo deegaanada Puntland ka dhici kara, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Saraakiisha Puntland waxa ay xaqiijiyeen inay sii wadi doonaan baaritaanada ammaanka lagu xaqiijinayo, waxaana jirta cabsi xooggan oo laga qabo Al-Shabaab iyo Daacish in ay weerar ku qaadaan magaalada Boosaaso. Ciidamo aad u tiro badan Puntland ay geysay diyaargarow xooggan ay ku jiraan. Maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ka soo muuqday 4 ruux oo loo haystay in ay ka qayb ahaayeen weeraradii Al-Shabaab Abriil sanadkii 2015 ay ku qaadeen jaamacadda Garissa ee dalkaasi Kenya. Francis Andai oo ah garsooraha maxkamadda magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa shaaciyay in 3 ka mid ah eedeysanayaasha lagu helay dambiga loo haysto oo ahaa inay qayb ka ahaayeen weerarkii ka dhacay magaalada Garissa jaamacadda ku taalla. Maxkamadda waxa ay sii deysay Sahal Diiriye Xuseen oo lagu waayay dambiga, waxaana lagu helay ayad ahayd in uu la joogay mid ka mid ah ragga weerarkaasi loo haysto, sidaa darteedna la xiray. Ha yeeshee markan wixii ka dambeeyay xurriyadiisa la siin doono. Dhammaan 4 nin ee fulisay weerarkii Garissa ayay dowladda Kenya sheegtay in ay isla jaamacadda ku dhinteen, halkaasi oo ay ku geeriyoodeen 148 qof oo ay arday u badnaayeen. Garsooraha maxkamadda Nairobi Francis Andai waxa uu amray in 3 eedeysane lagu sii hayo xabsiga inta laga gaaro bisha soo socota ee July 3, xilligaasoo lagu dhawaaqi doono xukunkooda. Al-Shabaab ayaa ardaydii ugu badneed waxa ay ku dileen jaamacadda magaalada Garissa ee dalkaasi Kenya sanadkii 2015, waxaana la sheegayaa inay ahaayeen ardaydii ugu badneed ee lagu dilay dalka Kenya. ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa amar dul dhigay shacabka iyo ganacsatada ku nool gobolka Banaadir. Duqa Muqdisho ayaa shacabka iyo ganacsatada Muqdisho ku amray inta lagu guda jiro maalmaha toddobaadka xurriyadda ee 26 Juun ilaa 1 Luulyo in guryaha la rinjiyeeyo, sidoo kalena goobaha ganacsiga ah lagu dhajiyo calanka Soomaaliya. Sidoo kale duqa Muqdisho waxa uu sheegay in la magacaabay guddi ka shaqeynaya maalmaha xurriyadda, kuwaas oo la shaqeyn doona guddiga heer wasiir ah oo uu dhowaan magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre. Soomaaliya ayaa xilligan looga diyaar garoobaya maalmaha xurriyadda sida 26 Juun oo ku aadan maalintii gobolada waqooyi ay ka xoroobeen gumeystihii waddanka Ingiriiska, iyo 1 Luulyo oo ku beegan maalintii gobolada Koonfureed ay xurriyadda ka qaateen gumeystihii Talyaaniga, sidoo kalena ay midoobeen gobolada Koonfur iyo Waqooyi ee Soomaaliya gumeystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriiska iska dulqaaday. waanaga intaa saaxiibayaal warkii aad kala socoteen xanta wararka waad ku maasantiin daawashadiina. Fadlan haddii aad ku cusub tahay waxaan ku xasuusinayaa inaad aado subscribe, like ay saarto qaybta hoosan aragtidaada aad nagula wadaagto. waad mahadsantihiin.